عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله صوماليد يقدوم سلام ديرن سلام كالإلاب سلام قالئ سلام كتمت قلبي ولالكين قلبي ويلكين قلبي ويل الصوماليات أو خير الدنيا يمد آخرين اللي جعل ويل الصوماليات أو كسر تغيير كيسي أهل كيسي إذن يمد إذن كوي يمد مال كفك دول كيسي هويو دول كي قلبي جنو كوينا دول كي قالي جنو أها أمني كيس أمان كيس الله سوء عليه dadkiisana ilaahay xamideeye aad baan ugu faraxsanahay meel ka fog dhulkeeni hooyo in aan kula kulmayo hooyooyin waalid dhalinyaro rag iyo dumar waxaan kula kulmayaana ayaan ahayn adduunya doon ee ay tahay liiclaa'i kalimatillaah wax ka wanaagsan ma laha in la isugu yimaado la isu soo horfariisto لإعلاء كلمة الله وحين قيبنينا ودحلك حبيبك كصلي يا حبيبكينا والله ليال سيد الذين شاقي وحان أهي أرضي وأنا كفانا إن أنا أهي أرضي إن أن كنا ولادو أرضي آدبان رنتي أنا أرضي أهنا آن بنتوه وكفانا محوعي وحواجب أهقفك إن وحبرته marka uu dhasho ilaa iilka laga geynayo qof walba wax baranayana waa arday marka u cudur daara walaalkiina ardayga ah hadaanu in badan baahidiina aanu oofin karin u cudur daara jahligiisa u cudur daara caadi ma aha runtii in aan intaan meediyaha hor fariisto ka jawaabo su'aalaha ilaahay ayaa waxaan ka baryayaa maxaa ka badan culimadeena inuu ilaahay noo xifdiyo culimadeena annaga iyo idinkuba waxaynu u baahannahay culimadeena culimo caalimiin ah adduunka ku ugu cilmiga badan ayaynu leenahay hadday Awroba joogto oo aad joogtaan iyagaad u baahantiin iyagaa yaqaana xaaladiina iyagaa yaqaana deegaankiina iyagaa yaqaana xaaladiina iyo baahidiina sida ay tahay duruufihiina iyagaa garanaya فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وحمركات كجوابيشت إن آد علم أولادها أيها ونكسن حالة أوروبنا علماء جوكتو تقانا أفريكا هدينا قطنا دي أسل كينيا بجوغبا مركا أرضي مسكين وحوال الله ما باحنا وحان أوريقين معها يعني إذن هو الفريسانين إنا إذن كعلمي بضلنا هاي معها كسار ملها قلبينا وحان أصعنا وعلم الدون أيينو نحي إذن كان واحد كبرنينا مالين والبوحواد نو شيكتان مالين والبحالدان أرقنا إذن كان والله إذن كبرنينا سوما إذن قرن مركا أنك إذن كبه علماء دين أيينو أباها النحي الله ينو حفظي علماء دين الشرعي شيدان إلهي هينو حفظي عمر قودنا الله النور ديريو انت كدب عدك سفي عن مدين سوغاريا hooyo iyo aabbo waan ku faanaa mar walbo aan mawduucaas ka hadlayo waan ku faanaa wallahi allah u naxariisto hooyo iyo aabbo iga dhinteen allah u naxariisto inta waaliday dhimatayna sidoo kale allah u naxariisto inta noolna allah xifdiyo dhalinyaroy aad baan horta ugu faraxsanahay in dhalinyaro badan ay hor fadhido maanta dhalinyaradan waa dhalinyaradii aan kala hadli jiray meediyaha halkaasaynu saaxiibo ka nahay maanta waa ku faraxsanahay inaan idin hor fadhiyo dhalinyaroy waxaan idin sheegayaa wax cusub maaha waa waxaan meediyaha idinkaga sheegi jiray laakiin maanta waxaan rabaa dhegihiina inaad furtaan laabtiina duleelisaan si hadalka aan ku hadlayo iyo waxa aan sheegayo أنا أفكا كما هضلو أنا نفانينين والله أفكا كما هضلو قلبي كان كهضلا والله كلمة أن شيء أنا قلبي جاي كصوب حظا
ilaahayna waxaan ka baryaa inuu geliyo qalbi inuu geliyo waxaana ugu fiican hadalka ka soo baxaya qalbiga ee gelaya qalbiga ilaahay qalbiga ha inoo wanaajiyo ilaahay ha inoo wanaajiyo qalbiga dhalinyaro waxaad ogaataan kama aydan soo bixin dhulka cirkana kama aydan soo dhicin waxaa idin dhashay hooyo iyo aabbaa idin dhalay khaasatan hooyaa idin dhashay hooyaa caloosha idinku soo qaaday hooyaa 9 bilood idin siday xaaladda hooyada markaad fiirisid waa xaalad ka duwan xaaladaha gabdhaha kale gabdhihii aynigeeda ahaa da'deeda ahaa qeyrkeeda ahaa waxaad garanaysaan hooyo 9 bilood ay caloosha kugu wado raaxam kuma noola ma raaxaysanayso hooyo waxaad arkaysaa caloosha mar allaaliyo waxaad arkaysaa caloosha bil maalinba maalinka ka dambeeya bilba bisha ka dambeeya hooyo waa cuslaanaysaa way cuslaanaysaa hooyo ma dhaqaaqi karto hooyo caatay noqonaysaa caloosha kullama ay weynaato xubnihii kalaa yaraanaya way daciifaysaa hooyo waad u fiirsateen hooyadiin hooyo way daciifaysaa waad aragteen way bararaysaa dhiiglaan baa ku dhacaya anemia ku dhacaysa hooyo way daalaysaa hooyo waxay maciin bidaysaa hooyo inay keliyaha qabsato markay soconayso inay halkaa qabsato oo ay sidaa ku nasato hadba dhan bay hooyo u soconaysaa hooyo waad garanaysaan maalinka ay ku dhalayso 9 bilood kadib hooyo waxaad arkaysaa maalinka ay ku dhalayso daqiiqada aad soo baxaysid ee aad ka soo baxaysid uurka hooyada way uga xanuun badan tahay intii ka horeysay oo dhan 9 bilood oo dhan waxa uga xanuun badan daqiiqada aad soo baxaysid laakiin waxa soo dhan hooyo waa u adkaysanaysaa gabdhahan yar yarkee qurxoon markay dhalayaan waa u adkaysanayaan cashan eeg waxa soo baxaya waa qurratu cayn aragtidaaday doonaysaa 9 bilood ee wixii caloosha ku waday 3 kiilo 4 kiilo ku waday banaanka mar allaala markaad u soo baxdid haddana eeg waa 2 sano oo ka kulul ka uga xanuun badan intii ka horeysay hooyo way daciiftay raaxa ma haysato 9 bilood ma ayana sani 9 bilood habeenkii aad dheelanaysay waa dacfi kale marka kalena waa 2 sano oo taxana ah hooyo 2 sano uma naxariisanaysid oo ogsoontihiin dhalin yaro idiilkiin uma naxariisataan hooyadiin hooyada dhabteedaad ka dhiganaysaa musqul ka dhiganaysaa ma aragtay aad ku xaaraysaa ku matagaysaa ku kaajaysaa hooyo waxaa laga yaabaa hooyo Allah u naxariisto Allah xifdiye waxaa laga yaabaa maalin in ay iska bedesho 4-5 dirac inay bedeshaa laga yaabaa oo marka ay ka dhaqayso ayaad ooyeysaa way ku soo ordeenaaskii bay ku siinaysaa iyadoo mar allaala markay ku aad dhigtid baad haddana waxaad kala wareegaysaa matag kale kiibay soo bixinaysaa haddana waad ooyeysaa iyadoonan dhaqin hooyo silac ma seexanayso hooyo habeenkii mar allaala markaad dhahdid hooyaa markiiba kula boodaysaa aabba khayr allaha siiye annaga oo dhan qolka kalaan jiifanaynaa hay wareerina la yidhaahdaa waxawaaye maanta oo dhan baan soo shaqaynayay waxawaaye ma ka warqabno 2 sano cunugii aan weynaaday haddaan caanaha iyo aan maaragtay dharka iyo xafaayadaha aan u soo gadno waa khayr haddii kale hooyaa ku soo koorinaysa 18 sanaad gaaraysaa 18 sano ninkii muluqa ahaa ee lagu hayay gacanta dhabta lagu hayay ee aan diqsiga xataa iska celin karin diqsigu ka awood badnaa ayaa waxaad arkaysaa gabadhii waa gabar weyn waa kuuskuusan tahay way isqabatay wiilkii sidoo kale 15 sano 20 sano la gaaray hooyada gadaal u fiiri hooyada waxaad arkaysaa kullama aad xoog yeelatid hooyo way daciifaysaa ma fiirsateen kullama aad adiga talaabada dheeraysid aad geedaha ka boodi kartid
hooyo talaabadeedu way soo gaabatay gabadha markay 20 sano jirto hooyada talaabada marka ay talaabsanayso iyo waagii ay 20 sano ka hor hooyo talaabsanayso isku mid maaha hooyo waa daciiftay indhaheedii hooyo wax ma arkaysa cirbada xataa waxa laga yaabaa inaanay dunta gelin karin aw nuurkeedii adaa qaatay aday ku hortay sacrifice aday tadxiyada ku siisay hooyo dhagaha waa ka jirtaa aad wax uga ma maqasho waxa tiri hooyo codka in loo yaro kor qaadiyo rabtaa in dhegta loogu dhaweeyay rabtaa aaway maqalkeedii adaa qaatay aw quruxda hooyada way dhartay dhabanadii tubtay hooyo aaway maashi aaway ma aragtay cabaariyaheedii aaway tage waxa soo dhan hatta waxaad qaadatay hooyo aad ka qaadatay nuxurkii timaheeda hooyo timaheeda bal fiir 20 markaad gaadhid xabad madow inaadan ku arkin baa laga yaabaa maxaa cadeeyo hooyo timaheeda aday ku hurtay miskiinta way daciiftay waxa soo dhan waa waxa aynu aragnay waxa ka daran oo aynaan arkin gudaheeda hooyo uurka meeshii aad ku jirtay adduunka intaadan imaanin ka hor gurigaagii waa uurkeede hooyo way daciiftay lafaheedii baa dibcay hooyo xididadeedii oo dhan baa dibcay hooyo maanta maxay u baahan tahay xoogeedii waxa soo dhan gabadha xoogan bay ahayd iyada adeegan jirtay maanta aday ku siisay wixii oo dhan adaa taagan 20 sano jirtaa wiilkaagan iyo gabadhaadan maxay hooyo kaaga baahan tahay maanta ma in la isu sheegay u baahan tahay dhalin yaro ma in la idin sheegay u baahan tahay hooyo inta kula soo ekaysiisay wixii kaaga baahan tahay Kenyaawi ma uga baahantiin inuu idin sheego Soomaali ma la fahmaya mش aanu bas ka qaylinaya hadii ayna fahmaynin in finish soo friisina aan oo fasire wali fahmaya ii jawaaba wala fahma Soomaha hooyo adeegeeda hooyo waxay kaaga baahan tahay ma in lagu sheega u baahan tahay waad garanaysan Soomaha khayr Allah idin siiyo hooyo waxay u baahan tahay Ilaahay baa ku sheegay wuxuu kugu sheegayaa ma taqaanaan ciyaar ha u maleynina wuxuu kugu sheegayaa in xujada ay kugu ooganto adduunka uu kugu sheegayaa markuu kugu sheego maxaa hadhow laga rabaa dadka laba u kala baxayaan dad qaata hadalka Ilaahay iyo dad aanan qaadanin Soomaha Ilaahay wuxuu leeyahay markaa kadib ilayal masiir wuxuu kaloo dhahayaa inna ilayna iyaabahum thumma inna alayna hisaabahum meedin sheega aayad Ilaahay mis hadhow waxaad ka baqaysaa xujo inay idin ku noqoto ma ka soo bixi kartaan Ilaahay wuxuu idin leeyahay imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما هدي هويدا اي ابها مسكينتي انو كسو شيكينيني حدا اما هوي اي ابو لبدودو هدي اكتاده دا ku gaaraan ila gabadha 20 ka jirto hooyadeed waa dae ama wiilka hooyadii ay jirto wiilka jir 20 aabihii iyo hooyadii waa dae haday agtaada hooyo ama hooyo iyo aabo ay ku gaaraan da agtaada haday ku gaaraan hadheena hadheena aabihin iyo hooyadiin khaasatan hooyo ubadka hooya inta badan ay ag joogaan oo ka warqabtay ayaa oo ay ka warqabtay hadheena hadheena waxa laga yaabaa in ay dhaadaan waa kii kan caaqilka ah ee dhahayo hooyadii hooyashe loo dhahaya laakiin ilmeen inta badan way dhahaan uftu waa luqada carabiga af Soomaali waxa waaye hooyo markay ku yarto adigoo ciyaaraya adigoo baalki dheelaya adigoo musalsalka meel fiican uu ku marayo oo adeeca meeshii ugu dambeysay oo aad wax kala celinaysid alla gabadhii aad la jirtay ama la hela ama soo gala alla waa ku soo socda way soo socotaa adoo wax kala celcelinayo computerkii ama TV-gii ku dhex jira hadii hooyo miskiinta ah ka waran ay ku yarto waxa sameynaysaa هاي سوى كوي معنا يا هاي هذه بدن واكا وايد في هايو ويلك حولي هاي يقولك وايد في أحبس أديه يصير هدي هنا أفتن لدي الدنيا هاي واي أحظى إيوه حاول صعد بالجر كاجا في رقفك مركو هايو وقولك وهقولين بالويري أحنا هديهن هنا قولين جر كاجا هاي كعبسين الساعة بالقف سوق سلا
ما دهسا ما دهيشد جرك واسقلنيسا انت لعنت سارتيد اد كذوتيد كاكي كدغتيد اياد ليدهاي waa ka soo qaar hooyooyinku waxay leeyihiin ma iga tag hay xagaanina qumayahay ya waxa hooyo ay ka baqaysaa in aad de goolkii hadii uu ku dhaafo inaad cunahaaba qabatidba war ma laga yaabaa hooyana cunaha qabatid ma dhici kartaa hooyadii inta kula soo martay in aad cunaha qabataan ma laga yaabaa inaad ceejisaan hooyo ilaa nafta ay ka dhacdo ma laga yaabaa ma dhici karaa qof muslim hooyadii sida inuu u galo yaan been la sheegin hadalkan ha u maleynina maxamed muuse kali inuu sajalay ha u maleynina wallahi hadalka aan dhahayo iyo waxa maanta inta ka dhacayo iyo niyadeena waxay ka qoran tahay ka sajalan tahay malaa'ul a'la ilaahay agtiisa soo ma ogidin malaa'ig inay garbaha noo saaran tahay wallahi saddex usbuuc bay ahayd waa taqaanaan saddex usbuuc bay ahayd Holland Denmark hooyo miskiin ayaa gabadheedii isqabteen hooyadii hadda aan ka soo sheekeynaynay way isqabteen mar allaaliyo markay is yara qabteen hooyada xaq waxay u leedahay gabadheed inay canaanato soo maaha gabadhii dharbaaxa iyo qab intay tiri hooyadii hoo bariiska indhaha ugu shubtay maasaa ka kacday hooyadii way garan weyday ruuxa dhacay dhinaci kale qabatay haddana hoo bariiska hooyadii cirka u kacday deewa miskiinta xoogeedii lagu garaacaya mugta xoogeedii way waxan hooyadii dhulkay ku dhacday hooyadii komay gashay haddaanay wax kale ugu sii darin markiiba ambulance baa la keenay ambulance alaala markii la soo dejiyay hooyadii la saaray wallahi ambulance dhawaaqeeda waa la sii maqlayay isbitaalkii lama geynin gabadhii gabadhii kaale arag balaayo aan la aqoonin baa u timid halka qoorta intay ku dhufatay ayaa dabaqay saarneed muraayadii ka soo tuurtay ambulance way si dhawaaqaysaa gabadhii dhulkay ku dhacday laf walba oo ay lahayd way jabtay ambulance hooyada ambulance ku xigtay waxa saarnaa gabadhii war ma garanaysaan cid qoorta ku dhufatay ma taqaanaan anigu waa aqaana idinku ma taqaanaan dhalinyaro ma garanaysaan ازاي سيدن u garanaynin سيدن u aqoonin garan meeshan gabar baa dhageysta gabar baa hooyadeed dishay hooya gabar dishay maaha gabadha waalidkeed dishay dharbaaxa hooyay dharbaaxa ku dhufatay hooyadii way suuxday isbitaal baa la geeyay gabadhiina qoorta la dhuftay daaqadii baa laga soo tuuray way jajabtay gabadhii garan meeshan cid qoorta ku dhufatay ازاي سيدن ma garanaysaan وجزاء سيئة مثلها حمان حداد سميسان أبالكي سوا محي وحمان كله حداد هوي درباحة كل فتيد هوي عنده أجذوديسيد هوي أد ما أركتاي أور كذا أد جلسيد ولا يولول أد جلسيد أبال كذا محاوي وحي أد قصة ميسي وح كدرنا القصة مينا صوماها وحوايه وحقي هويدا gabadha waxa ku dhuftay qoorta ku dhuftay waa xaqi hooyada xaqeeda ma dhumayo 9 bilood macaan ciyaar baad moodi uurka lagu soo siday bilaash ma dhabteed ugu xaari jirtay ugu kaadin jirtay war yaa ogol insaan ka ogol dhabtiis in lagu xaaro ilaahay baan ku dhaariyay oo lagu kaadiyo diraceeda in lagu matago yaa ogol war ma ogashiin haddaan tan soo ordaan dhabta kaaga xaara ka war see yeelaysaa إنسان واي سو ما أوجد قفك على شيء كوجسدي سو ما أوجد إنسان واي قفك الله بس سنة نبت هذا عاد مشغول كديتي وإنسان سديد يطول سنة قفك عاد كسوكوري وإنسان قفك كودي ذي راح هذا ذي كاجتك تي أب معها وهوي ودمر وقف ضعيف وحول بوين أكسن بيكوسيسي إزاي سأقدر باحيسا والحق هذا ملوما يا ملوما يا هوي حق هذا سؤل ما يا هوي سأقدر باحيس هوي هوي إنها وإنه كل لنايي أفكا وأفكي كلهم كنايي سأقدر باحيس
سأقدر بحيسا هوي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هقول قولن هوي هقول قولن بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. إلهي آيدي سلحو كل هي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حق هوري إلهي كوليه أدونك كوليه محاكو حيقة حق والدك كحيقة. إلهي بعدها أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقول شكري أنيقا يقول شكري حق هوري الله له رسموه جدين دلين يرو سموه جدين إلهي بالي حق هوري حق الله بعد يسكله ولوالديك أبي هويا له هويا يا أبا له حقه ويموتين أبانا وحا أوردي أودي وامحي وإنو كقوضي كريد قري أوبحيو وحبرشو كابحيو بيلالكاس إنو دبرو هويانا واتا قري كو فرددا كو ديده راحة ديو نمبي كاغا تكتي أن اشكر لي ولوالديك كعاقل والدين عاسق قرن ويا حق هويا يا أبو حلو سمينا يا إلي المصير أنا لئي صلى بنايا يا وي وحلو الله بناي متقانان وإلهي انتوكو أمري أدي دويان بجنة سويسة جنة مياد سويسة هويا كو يرتي عيار باد كدورتي هويا كو يرتي وي كو ويدي حقيت جرتا حقو جرا ويلك هبينك مقن حقو جرا ايش شيء حقو جرا قبضنا مقن حقي جرتا حقي آديسا قبضنا هويا يا أبو جوغيسا قري واتقيسا يضونن أوغين هويا يا أبو يضونن أوغين أو أيام كفاسيحيسا وبحيسا حقيت آديسا وقتي أسا ديعي سيدي أسكلمة تقانان ورياله وقتك حوقك ياله حولها ياله وقتك ياله عمرك ياله أدومدي الله هو يا أباله هو يا أباله صحابي بقوا إيمان يا رسولك صلى الله عليه وسلم مركزو كلها يا رسول الله يا إسكاله صاحبتنا ماذا ياله نشابه ويان نندل يراه ويان يا إسكال حوجية يا لحولهية يا لوقتية وناجية يا وحقبتا يا لصاحبة حوجينا يا له حولهنا يا له أبي هو يا له مركز صدها يا هو يدا هو يوحي لبو ديشن إلى بعتن بقول كيبا حوجي حولها وقتيجا مركز يري يا إسكال مرلبات هو يدا باله كنتنا يا هويا قادتي يا اسكال مركز سدحاد هويا له تضواتني شنبي قادتي ورمياني إلهي بان كداريه أفر كيلا أضوئي علوش كوكوة دي سيال بلود بيكو ودا هويو كبناها دعدي ذا فيدي ودودوبيه يغردن ويفدود يهين هويا مركي لسعوتا كبناها ويكتغيان مجاري كرتو ورمحاد دي بوديغي هويدا أدا أوديغي أوركيداد كجرتا أو حقيدي هويو هويا قبلها لعب وحبي أركايان وحبي مقلايان ويأردايان ويقروح بديين واكا مسكين تان درتي اسكو درتي سو قودتي أوي حقيدي أدا أوهيا حداد أودي دي حقيدي الله سيي سبحانه إلهي بسيي بقول كيف طلباتن يشبو سيه هو حقه طلباتن يشبو هو يسيي يا اسكال رسول الله مركا أفراد أبا له بقول كيف بقول يا قاتي حوقاقا حولها وقتي يا قاتي والدا قاتي قبر محي كل هذا أصحاب محي كل يهين وريق مسلسل لفيرصدو إيوه معي كليه شامبيون برشلونة إيوه ريال مدريد معي كليه وقت جاجا وحبكم لها مسكين يا ضاله هو أنت كم قنت هاي وليس هويو ويمرجيسا هويو ويأويسا هويو وحبيها وكان لا ضحي رأوي هويو يمكن آوي
xaggeed ku ogtihiin cirka maa ka soo dhacdeen mise dhulkaa ka soo baxdeen xaggeed ku ogtihiin hooyooyinkii waa kuwa soo arkay weeyaan ee jooga qaxootiga jooga weeyaan waa kuwa cirkana u saqafka ah dhulkana u gogosha ah waa kuwa UN-ta ay biisho waa kuwa ay siiso bacaha ay siiso kuwa qoraxda ay dishay weeyaan hooyooyinkiin xaggeed ku ilowdeen hooyada 75% xaqeeda la siiyey ilaahay abuuray siiyey xaggeed ku ilowdeen hooyo waxaa korinaya mishaarida u karinaya biyo siinaya isbitaal geynaya waa gaal aysan dhalin weeyaan United Nationska siinaya iyagaa goglaya iyagaa wada iyagaa xambaaraya aaway hooyadan miskiinta dadkii ay dhashay aaway soo kuwan ma aha xoogga waaweyn ee hor fadhiya soo idinka ma aha ceelasha biyaha masaakiinta joogta oo miskiinta dhididay ee shaha wareejinaysaa soo hooyadin ma aha xoogiinay leedahay xoolihiinay leedahay waxqabadkiinay leedahay goormaydu kugu dambaysay hooyooyinka meel walbo aan tago hooya calaacalaysa wiilkaygii baa iga tagay wiilkaygii baa sidaa yeelay wiilkaygii baa sidaa ii galay wiilkaygii aan ku soo daalay markaan oranba u dirsaday wuu ii ilaaway maxaad ku ilowday war waa maxay jannada macaankaad ku ilowday hooyo macaan ma wax ka macaan baa jira wax ka macaan miyaa jira hooyo wallaahi inaanay jirin nin baa u soo ordaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu dhahay yaa rasuul allow meel fog baan ka imide ii ogolow rasuul allow inaan kugula mubaayaca diil inaan kula galo ii ogolow rasuul allow in aan soo hijroodo oo aan kula jihaado anoo doonaya ajir ilaahay ii ogolow rasuul allow xadiidku waa saxiix weeyaan waxaan sheegayo ima waa Bukhari ima waa Muslim ima waa saxiixaynku ku yaala rasuul allow ii ogolow in aan kula jihaado waa loo baahan yahay ciidan ima waa Badr ima waa Uhud ima waa maaragtay ghazawaadkii kale ee loo baahnaa shaab dhalinyarada loo baahnaa ii ogolow rasuul allow inaan kula jihaado ilaahay dartii baan rabaa ajir ilaahay baan rabaa jannaan rabaa rasuul allow يا رسولك صلى الله عليه وسلم حكمة بالا ربا دين مركات فعل سمينيسد حكمة لدونيا على علم إناد أسميسد جاو حقرتين إن كان وحا وجنة كرادينا وحا ومرتبط سدحاد ويان أدي فهمه ومرتبط سدحاد وجهاد وحدونيو laakiin waxaa ka horeeya martabadii labaad ee ku xigtay martabada koowaad ee ilaahay caabudidiisa ah war xaqa koowaad oo ah cibaadada ilaahay iyo jihaadka oo ah xaqa ee martabada saddexaad yaa u dhaxeeya birrul waalidayn waalidka u dhaxeeya bil waalidayn ihsaanan khalad weeyaan in la kala hormariyo إن لك الهرمري واجباتك وخلط تن كما جرتو كوا لك الهرمرية كما جرتتا حاجك مركات جوكتداد أما حيرشدا أما قورع هديقة ما ركتايا ديحتو رشدا واتك الهرمرين كرتانتا أولا سمي لكن تن مية حق هوري الله له يلا هرمرين كرا حق إلهي ورسالات دموح لك هرمرين كراجر أبدا أي العمل أحب إلى الله عمل كي أقواناكسن عمل لقبت إنسان كأوقبت عمل كي أقواناكسن الصلاة على وقتها صلاة دولة كذا وقت كذا وأن لقد بدين لقينا هرمرين وشيء أقوهرية عملك أقوهرية إلهي جعلي هايويا وحجري ثم والترتيب والتراخي أما مع تراخي يعني يا كحيقة عبادة صلاة مركا لقلت كذب وما حيواجب ككالا كحيقة من اللي فهمها يا كحيقة وحير بر الوالدين وبالوالدين
آية كلام محيتري وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وصلاتي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وحقي هوري الله إن إلهي عابدان محاكو حيقة بر الوالدين وبالوالدين إحسانا ما كلا هران ما كلا هرمران كورنا دام كله صلاة وقتي أن تكن لها حتى هو يكفر يستكور ما أنفعيسا ما أنفعيس إن صلاة ودا يهايو ما أنفعيسو محاوعي هايو وحكهرية واجب كصلاة كهرية عبادة الله كهرية حق إلهي مسين كري هايو قفل بحقي سسي قفل بحقي سسي هذا سين ويدان آخر حسابات الله أيه ثم أي يا كحيقة وحا كحيقة الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله مرتبط سدحاد واي اك هو يدو لغا هرمريي جهادك waxa looga hormariyay waa waxa ay leedahay xaq ay leedahay waay waa muhiimada waa yani waa muhiim ay tahay hooyo iyo aabo daa'iman hooyan ku cilciliya waalid badan baa runtii rag badan baa iiga xanaaqay arrinka laakiin waxa ogaataa martabadan birrul waalideyn marka laga sheekaynayo hooyo iyo aabo yaa horeeya hooya horeysa rasuulka hormariyay 75 baa la siiyay hooyo aabana 25 baa la siiyay hayla yaabina markaan hooyo hormariyo ama aan ku celceliyo carabka hooyo badan oo ooyeyso dayacan baan arkaa iyada leh hooyo leh xaqa haddaad siiso musalsal haddaad siiso maaragtay ciyaar haddaad siisid haddaad hooyo ka dhaxdid iyadoonan ogeyn oo aan raalli ka ahayn ma anfacayso wuxuu yiri xabiibka sallallahu alayhi wasallam markuu yiri waxaan dhiil kula galayaa kula mubaayacoonaya jihaad iyo hijro aan doonayo ajir ilaahay iyo janno inaan ku galo ayaa wuxuu yiri ma leedahay hooyo fahal min ahad walidayka hayy man noolyihiin mid kamid ah ma noolyahay waalidiinta هل كمذا من نوليهي وحيري قال نعم كلاهما حي يا رسول الله يا رسول الله ها لبضوض بوانوليه رسول الله هو يا نول أبا نول فهل من والديك أحد حي مدون من نوليهين نعم كلاهما حي يا رسول الله iska dhaaf hale labadiiba ii joogan muxuu yiri rasuulka wuxuu yiri ma doonaysaa ajirna ilaahay ma ka doonaysaa ma rabtaa janno inaad gashid adoo waalidiinta nool yihiin ha farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma haydan gashay jawaabta hadaad ilaahay ka baqaysaan adoomadii allow qaar bana qaana dhigta intay ka galiyaan dhigta kala ka bixinaayo لكن وشيء حق أنه عنا وقبقينا والله إننا نجرين والله فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما أنك هو يدا إيابها الله هو إيابه أو وناجي لجركو ذا وناجي وأذيك هو إيابه وأذيك وقبي هو مسكينت وقبي ودق مضحة سليد أمري قبوجي وتذع وشاكي هو أركض فرحة قلي فرحت قلي هوي وريح ريح ببي هويو ودقدر كذا وأذيك فولي باهي أوفي هويو يا أبو أذيك أبي هوي عليه نا ملها قف شيء ملها صاحب ملها ولا جار ملها هوي يا أبو هوي ذا جنة هذا دوني سنة دومدي الله هوي يا أبن إنولي هنا هوستو ذات كهليسان jannadaada waxa la geliyay hoostooda war soo ma oogid qofka insaanka adduunka marka uu ka tagayo xabiibka dhahaya man kana aakhiru kalaamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna qofka marka adduunka uu ka tagaya hadalka ugu dambeeyo uu yahay la ilaha illa allah jannadii buu galaya xadiis saxiixa maaha لكن واحد أركيسا حدنا قف
dhihi karin qof aan dhihi karin wuu rabaa inuu dhaha laakiin cunaha lagu dhegan yahay waa la ceejinayaa war ma raalli baad ka tihiin addoommadii allow adduunka markaad ka tegaysaan in lidin ceejiimiyaad doonaysaan ood dhihi weydaan laa ilaaha ila allah waxaa lagu leeyahay culimmadu leeyihiin waxa qofka cunaha qabta marka uu dhimanayo u diida kelimadda tawxiidka inuu adduunka kaga baxo oo keena suu'ul khaatima waa hooyo la caasiyo aabboo la caasiyo weeyaan hooyo hadday qalbiga kugu hayso ha sugin janno wallahi wallahi waa idin naxayaa wallahi hooyo hadday nooshahay aabba hadduu nool yahay jannada halkanay ku taallaa marka ay saxiixdo shaabadda kugu dhufata ayaad geli kartaa jannada wallahi sheekh kalena ha weydiinina qof iga dambeeya ha horsanina taa hooyada oo ku haysata oo gadaal ka ooyaysa ku raadinaysa uurkeeda u kacayo ooyaysa gubanaysa haddaad dhimatid yaa jannaha sugin ilaahay baa yaqaana meesha aad tegaysid allahna soo hanuuniya annagoo dhan hooyo waa jannadeenna hooyo waa naarteenna weeyaan nin sheekh maxamed xasaan oo ku celceliyaa runtii qisadan daa'iman xabiibka horta wuxuu dhahayaa sala allahu calayhi wasalam ya bna aadam isnac maa shi'ta ya bna aadam isnac maa shi't fakamaa tadiinu tudaan waxaad doontaan sameeya halkaas wax waa lidinkaga sheegay halkaa wax kalaa lidinkaga sheegay culimmadii har iyo habeen internetyadii oo dhan hooyo way idiin sheegtay aabbo wuu idiin sheegay meel walba wax waa lidinkaga sheegay qalbigiinni waa la buuxiyey haddaad dhegaha furaysateen oo aad maqli weydeen oo aad shaydaan raacdaan yaa iyo warkuu idiin sheego isnac maa shi't waxaad doontaan sameeya fakamaa tadiinu tudaan wax allaaliyo waxaad caado ka yeelatid waddadaad jeexatid unbaad qaadaysaa la soco war haddaad waddo shar aad jeexataan yaa qaadaya macalli baa qaadayay kula tahay maya haddaad waddo abuurataan oo aad waddo jeexataan ama beer abuurataan yaa goosanaya yaa qaadaya waddada dee qofkii jeexday adaa ku dhididay aduunbaa qaadaya beertan adaa ku daalay aduunbaa goosanaya haddaad kulli goosanaysaan qof kale aanu goosanaynin khayr goosta addoommadii allow goosta wanaag goosta baarinimo goosta biruu aabaa'akum tabarukum abnaa'ukum u baarinimo fala waalidkiin hooyo iyo aabba ha la ogaado hooyo iyo aabbo ha la ogaado ilmihiina idin ogaanaayay idinkane haddii ay yeeli weydaan soo maaha aakhiro war baa jira inna ilayna iyaabahum uma inna calaynaa xisaabahum dadka annagay noo soo laabanayaan xisaabtoodana waa korkaya yaa dhahaya allah subxaanah waa ilaahay ku dhahaya wabilwaalidayni ixsaanan ilaahay ku dhahaya weeyaan walaalayaal marba haddii jihaadkii laga hormariyey biru lwaalidayn hooyo iyo aabbo haddii laga hormariyey biru lwaalidayn yaa macyaar baa ilaahay baan ku dhaariyey macyaar baa hooyo loo dayici karaa mise hooyo orod baa loo dayici karaa itamashleen waan soo shaqaynayaa lacag baan soo keenayaa adduunyo war haddii jihaad looma dayn karo lagu yidhi ma waxaa loo daynayaa xaaba adduunyo la ururiyo ya waa loo baahan yahay inaad shaqaysid hooyo u shaqaysid laakiin maanta adduunka eeg adduunka waxa waaye ilaahay baa hadalku faraaya oo ku dhahaya waqul lahumaa qawlan kariima kow waqfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma labo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira waa hadday nool yihiin u raarici hooyo garabka hadday kula joogto ay ku maqlayso hadal wanaagsan dheh afkaagii adinkaaga hooyo hadal wanaagsan dheh ku farxad geli afkaaga gabar yahay ku farxad geli hooyo gacmahaaga ku farxad geli wakhtigaaga ku farxad geli lugahaaga ku farxad geli jiritaankaagii joogitaankaagii noloshaada hooyo iyo aabbo ku farxad geli maxaa wacay hooyaad noqonaysaa ragga aabbay noqonayaan ilmay dhalayaan hooyo aabbo way dhimanayaan hadhow markay ilmo aad dhashaan labadiinoo markaad ilmo dhashaan
ilmihiina inay idin anfacaan bay u baahan yihiin. haddii aad anfici weyday dhegaysta, haddaad anfici weydo hooyo iyo aabbo maanta oo aad ka fogaatid oo aad gelisid aad murug gelisid hooyo iyo aabbo, waxaad ogaataa adigana goor dhow in aad goosanaysid suntaas aad abuuratay. maxaa wacay waxaan ogsoonahay ninbaa wuxuu sameeyey, hadda gabadhii aan soo sheegayni waad aragteen, wax kale qoorta ma dhufanin, daaqadaa kama soo tuurin, ma waalla gabadha oo iyada iskama soo tuurin, laakiin waa ishii hooyada, xaqii hooyada soo tuuray, waa abaalxumadii iyo ficilkii xuma ay samaysay baa soo tuurtay gabadha. kow sheekh maxamed xasaan radia allahu canhu, allaha u naxariistee, ayaa wuxuu sameeyey isagoo ramsiis maraya, waa qaahiro dhexdeeda, ayaa wuxuu arkay, waa qof hadda joogaya, haddaan radia allahu canhu yari raalli ahaada, waa allaha ka raalli ahaado, ayaa isagoo ramsiis maraaya wuxuu arkay meel lagu urursan yahay, wuu dhex galay, sheekhii waa looga leexday, mise oday waa yeela ooyaaya, ciraystay, shaarku jeexjeexan yahay, bishimuhu dhiigayaan oo wejigu kukuusan yahay. markaasaa wuxuu yidhi war yaa dilay odagaan waa yeelka ah, da'da ah yaa dilay? mise halkaasaa waxaa lagu celcelinayaa wiil xooggan oo 20 jir ah, wiilkaasaa dilay. oo muxuu ku dilay? oo wiilkiisa muxuu yahay? odayga wuxuu yidhi waa wiilkayga. wiilkaaga? haa. wiilkaagaa dhiiggan kaa keenay, wiilkaagaa bishimahan gooyey, wiilkaagaa halkaa kaa kuskuusu kuu feerayey, ku buurbuuriyey, wiilkaaga. wuxuu yidhi hala yaabin buu yidhi, isaga ma aha khaladka waa aniga inuu wiilkayga halkan igu garaaca, anaa kasbaday beerta aan goosanayo, miraha aan cunayo maanta, oo oohintan iyo dhiiggan iyo foolxumadan bahdilyadan ah anaa abuurtay, yaa kaloo goosanaya. wuxuu yidhi aabbahay baa hadda ka hor 20 sano ka hor halkan aan keenay, baadiyaan ka soo kacnay, xoolihii iyo beerihii alaab baan soo doonnay, qaahire iyo dee markaan muraayadihii nalalkii iyo dadkii iyo maasha allah gawaaridii noloshii macaanid aan arkay, odagana aan alaabtii gadanay buu yidhi haye waa noqonaynaa, xoolihii iyo beerihii iyo reerihii baan u noqonaynaa, waa dee xeradii meeshii mugdiga ahayd, baadiyo waa taqaanaan. wuxuu yidhi aabba raalli ahaw, adun baa noqonaya, aniga magaaladaanaan rabaa, aabba halkaanaan joogayaa. wuxuu yidhi aabbaya xoolihii iyo beerihii ma dhici karto aabba, soo bax. iyo maya waa lisriixriixay. odaygii baa marka waxaan ku bilaabay buu yidhi feer, odagaa sheekaynaya, aabbaan dilay buu yidhi, halkaanaan ku dilay, maantana 20 sano kadib wiilkayga igu dilaaya halkan. wajazaau sayi'atun miluhaa. war ilaahay ma been buu sheegayaa? waman asdaqu min allahi xadiiثa. haddaad waalidiintiin baari u noqotaan, ilmuhu baari bay noqonayaan. haddaad caasi ku noqotaanna ilmaha caasi bay noqonayaan. waqtiga allah noo barakeeyo walaalayaal, waalidiinta baari ha loo noqdo. waxaan keliyo raacinayaa 2 daqiiqo. haddaad leedihiin hooyo iyo aabbo 5 sano anoona la hadlin ayay dhinteen, alla maanta waxaan ogahay, haddaan ogaan lahaa 5 sano ka hor hooyo waan xiriirin lahaa. haddaad leedihiin hooyo anoonan ogeyn bay dhimatay, hooyo iyadoo iyo xanaaqsan bay dhimatay, alla aabbo 10 sano yaa ka hor buu dhintay, alla hadda maxaan qaban karaa, hadda maxaan u samayn karaa? haddaad leedahay wax badan baad qaban kartaa. addoommada alla waxaan idiin sheegayaa, hooyo iyo asalka iyo faraca ma kala haraan. war yaa joogitaankaaga sabab u ahaa? hooyo iyo aabbo. ilaahay ka soko hooyaa ku dhashay, aabbaa ku dhalay. marba haddaad nooshahay oo aad jirtid oo aad joogtid, hooyo iyo aabbo iska daa, ha noolaadana ha dhintaana xiriirkiina go'i maayo. waa lagugu leeyahay baarinimadii, ha dhimato ha noolaato, waa lagugu leeyahay. oo hadday dhimato yaa wax siinaa? seen wax u siiyaa? rasuulkaa u imanaya nin sala allahu calayhi wasalam, markaasuu wuxuu dhahayaa, rasuul allow, baarinimadeydii ma waxbaa iiga haray, ma la iiga baahan yahay baarinimo hooyo iyo aabbo bacda mowtihimaa, markay dhintaan kadib? wuxuu leeyahay haa. waa maxay? 5 shayba waa lagaaga baahan yahay.
ورما يدين شيئا مو بهنتين ما سمينيسان بلن متاعي ويدين شيئا محمد موسى معها واحد سجلية حق إلهي بيك سجلن تاعي وأمانه وعليس عن قورتين صاريو والد بدن بعد دبن وحو يري شن شيء أي كاجبها هين هاي أبو هديد انتان تنوغو الرئيس الصلاة عليهما إن أد ادعيسيت دعو مالو البؤات جوكتي هاي إلهو إن حريصو قبرك واسع قيامها والشفيع أبو إلهو إن حريصو والاستغفار لهما طلبات إن استغفار ويديسيت أو أدهدت إلهو إنح إلهو قدام بداف والدين تي وطلبات تنسدحات إن حريريسيت dadkii iyaga dartood un loo xiriirin jiray oo waa kuwa dad baa jira aan la xiriirinin aan waxba ku ahayn hadaanay hooyo iyo aabbo ahayn waa qaraabadii ya qaraabada ugu horeeya waxa ugu horeeya kaad caloosha ka soo wada baxdeen ee asku aabbaha isku hooyada tihiin ama isku hooyo ama isku aabbo qaraabada ninka ugu horeeya waaye inaad xiriirisid hooyada kadib walaasha inaad xiriirisid hooyo markay dhimato kadib aabbo uu dhinto in gabadhii uurkooda ka soo baxday wiilkii ka soo baxay wacdid xiriirisid hadduu baahan yahay siisid hadduu aradan yahay huwisid oo aad danihiisa oofisid hadduu xanuunsan yahay dhakhtar geysid haddii aad kartid inaad ka warqabtid waa waajib uu kugu leeyahay hooyo iyo aabbo intaasoo gabdhood intaasoo wiilba wuxuu leeyihiin walaal maba naqaanaba walaalihiin waxaa isugu kaay dambaysay mudda isugu kaay dambaysay war hooyo iyo aabba haddaad rabtaan inaad wax u qabataan xiriiriya walaalihiin xiriiriya qaraabada iyaga ugu horeeya kan saddexaad kan afraad waxaad xiriirinaysaa asxaabtoodii hooyo gabadhii ay la sheekaysan jirtay oo ay ku soo nafisi jirtay oo ay agteeda ku soo lugu baxsan jirtay gabadhaas waa inaad xiriirisaa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa ardaah حديث صحيح مسلم أيا وحو مال إسقوا مكة الصعدة دمير بوسارينه كليل ويان عمامد مدح وقدوبا إسقوا الصعدة أيا وحو أركياه نين أعرابي قلا كارمانيس نين رمية وقرنا يا مركز كسو دقايا دمير كيسي انتو كو أرضو انتو حنبارو دون كنايا عبد الله بن عمر قال الله صعد أصحاب ويا بيهن مر الله على مركو دون كذا أيو رحيا ورسو ماهد هبل سو ماهد ها وحوليه هاي الدمير كي يفول نقول ويناي ودبنا فول بوير الدمير كيغا واحد يدي قاضو عمامدي انتو اسكفر عبد الله ايو مدح وقدوبايا اوليه هاي قرحدن اسقى علم مدن مع السلامه ما الله مركو كسو تغا اصحابته خيليه ورواه محنيو بهالشي كليه دي اد كسعتي عمامدي قرحده كا عيلينيسي ور نينكن walaalkaaba waa maxay wuxuu yiri may ninkan aabihi iyo aniga aabahay ayaa saaxiib ahaa waxaan maqlay buu yiri rasuulka oo dhahayo sallallahu alayhi wa sallam inna abarra albirri silatu ar-rajuli ahla wuddi abihi wa sahih muslim baarinimo waxa ugu wanaagsan in uu qofka xiriiriyo waalidka dadkii ay isjeclaayeen ma ha qaraabe ogow waa asxaabtii shishe hatta qabiil aydan wadaagin ayaa la xiriirinaya say u noqotay baarinimo mid ugu wanaagsan haddii meeshaas aad xiriirisid hooyaday bay is yaqaaneen gabadhan aabbahay bay ninkan is yaqaaneen oo ay saaxiibo ahaayeen haddaad xiriirisid waxaa ka awlaysan in aad xiriirinaysid qaraabadii iyagiina aad xiriirinaysid war miyaanay ahay wixii ka sokeeyey waad xiriirinaysaa marka walaalayaal ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inaga yeelo kuwa waalidka xiriiriya waalidkaan ilaaween waalidka duco nooga baahan yahay waalidka kaalmo nooga baahan yahay hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba adduunka kaliya ma furna accountiga xawaaladaha adduunka kaliya maaha bal xawaaladaha aakhira ka degdegsiin badan kuwaasa ka shaqeyn og hadda idinkoo fadhiyaad shaqeyn kartaan xawaaladaha aad rasiidka kaararka u xoqi kartaan
ودعي والدك قلبي وكوقبت لها إلهه قلنا حريص والدين تيو سيدي نوغسو نحريص جيرين إلهه سيدي واغانو يرين سيدي نوغو نحريص جيرين إلهه قلنا حريصو إلهه قال مارك تاي قبرك واسعي إلهه قبرك وقدك روضة من رياض الجنة إياه وليبا وحالك أجبها هي دردارن كودين إناد فليسد أد أوفيسد وهدي أي تهي سيد الشرعي وافق سنة دي تهي هدي يكون هذه وحاس يجود هدي يكون هذه وحاس سماه هدي يكون هذه هبل وحسي هدي يكون هدي دردارن أوجره إناد أوفيسان دردارن كأبي هو هدي شرعي وافق سنة هي انت ايام كسو جبجبين يا ولا ليال إلهي وحن كبر يا دنبيجين دنبيج والدين تاني إنه ضعفوا دنبيجين دنبيج والدين تاني إنه ضعفوا لأن يراد ده يرقي دمر بأنت أنا جورسين جور حلال الله سيو جور حلال الله سيو جور إيه كنت جان الله سيو أنت إسقطت أن أود كلاهين أود حلال أو صالحين الله سيو أود فربنا صالحين الله سيو سرير صلبلارن الله كيلو أنت والدي كلام عن الله يسكينه أنت هوي أب حنوسن الله عافيه أنت حنوسن الله عافيه أنت أبد لقاتي الله سوء عليه يقول عزي شرف له كرامة له الله سوء عليه أنت حرن الله سوء دايو أنت حرن الله سوء دايو أنت قلوا عن الدراجستيال عاصي بلاي إلهي سوء توسيو أبد كين الله كيرا كو صلاة جعل كو صون كجعل كو عبادة جعل كو كحرن إله هذا إلهي إيمانها كبوحي أورك المهنة إيمانك إسقى وحقه إسقى هجامية إسقى كعية إسقى سريع قادة إسقى كحر الله إيمان الله سيئوت كينا إيمان أورك هذا الله جليه حريره هذا الله يالو كو إيمان قوى مؤمنين الله كيالو كو حق والدك تقرت الله كيالو دول كيني الله نبديو دول كيني الله نبديو أمنكيس أمانكيس الله سوء عليو دول كيني هويو قلبي كينو والله كوين يا هاي إلهي حسليو إلهي ورمركيس هاي سوء عليو بلا يودن الله كإلاليو إلهي وحن كبريه هدي أين أدون كان كتجين إلهي نجا صار إلا إسور رالي نجا أحمانه إله رالي نجا أدون كان هاي نجا بحيو حدينو كتجنه رسولك معيسى محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف صلى الله عليه وسلم معيسى جنة الفردوس الله يسوك يجيو إنه ولي ذلك ومولاه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.